kulamadaas muddadii uu socday fursad la isugu helay in ay si gaara isku arkaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, gudoomiyaha aqalka sare, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, madaxdii hore ee madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka xasan sheekh iyo sheekh shariif, sidoo kale madaxweynayaashii hore ee puntland mudane doctor cabdiweli cali gaas iyo madaxweyne cabdiraxmaan faroole, madaxweyne ku-xigeenyaashii hore iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda puntland, ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cali geedi. intaas oo dhan runtii waxay muujisay shirkaas oo maalintii shalahay qabsoomay. waxaa aad looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo, sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka, looga wada shaqeeyo sidii dowladda soomaaliyeed dibudhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan. shirkaasi wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo, iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qayb ka ahaayeen isimada reer puntland, waxgarad, abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada soomaaliyeed ay aad u soo jeediyeen in dadka soomaaliyeed iscafis guud uu halkaa ka dhaco, maadaama fursad aad qaaliya u ahayd. waxaa dadkii oo dhan isla qaateen ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed in wixii dadka soomaaliyeed ku kala dhex jiray xalidhalay laga noqdo, hore loo socdo, dalka iyo midnimadiisa laga shaqeeyo. runtiina waxay ahayd kulankaas kulan taariikhi ah oo garowa ka qabsoomay oo ilaahay uu noo suuro geliyey. kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka ay isku arkeen wuxuu gogolxaar u noqday in kulamadii u dhexayn jiray oo muddo hakad ku jiray kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen. kulankaasoo loogu gogol xaarayay in la isku cafiyo, waxyaabaha khilaafka shakhsiga ah lagu saaro, danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo, howlaha iyo ajandayaasha dhabta u ah dowlad dhisidda si qoto dheer loo galo oo aad loo lafaguro si loo gaaro horumar shacabka soomaaliyeed ay ku laanoonayaan. runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha 3aad, uuna ka codsaday dowladda puntland in ay gogoshaas martigeliso. anagoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada garoowe. waxaana ku faraxsannahay inay puntland sidii horeba u ahayd inay ka shaqayso midnimada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya in kaalintaas si firfircoon ay u qaadato. waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda puntland u furan tahay, ka shaqaynayso midnimadooda iyo horumarkooda, diyaar u tahay in wax kasta oo midmadooba oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiima ka qaadato. waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed inay wadajirka ilaaliso, midnimada ka shaqayso, dowladnimada ka shaqayso, hore loo wada socdo, wixii khilaafaad ee shakhsi ah ee u dhexeeya meesha laga saaro cid walbo ay tahay, ummaddana ay ka wada shaqayso nabadgelyada, meelna looga soo wada jeesto sidii cadowga ummadda soomaaliyeed ee nabaddiidka ahna loo ciribtiri lahaa, dowladnimada soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa, horumarka iyo sidii dadka loogu adeegi lahaa looga wada shaqeeyo. waxaan ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay wada joogto kulamadii halkaa ka soo baxay inay ahaayeen kulamo dhiiri gelinaya shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan. shacabka reer puntlandna sharaf iyo karaamo u soo hoynaya, tusinayana inay diyaar u yihiin inay walaalahooda soomaaliyeed ay la qaybsadaan wax walba. maxaa yeelay inta meel ka mid a soomaaliya ay dhibaato dareemayso, dhibaatadaas waa dhibaato ummadda soomaaliyeed wada haysato. waxaan rajaynaynaa beejkaas inuu beej cusub fur noqdo. madaxda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in ay waxa dadweynuhu ka sugayaan sida ay tahay loo qaato. waad salaamantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.